بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم مدنيال iyo marweyn السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كدي waxaan runtii maanta aad iyo aad maalin qiimo badan oo dhammaantiin farxad inoo ah in la soo kordhiyey shilling ama in mushaharkii shaqaalaha dowladda electronic looga dhigay oo qofka fududeyn loo sameeyey runtii qarankeena oo ogtihiin muddada dheer uu soo jiray waxaa la soo dhisayay mar walba hadday shuruuc tahay hadday farsamooyin kale tahay haddii nolosha shacabka tahay iyo bulshada sidii horumar loo gaarsiin lahaa ummadani waxaa halkan laga sheegay in la sameeyey reforms fara badan ama maaragtay dib u habeyn fara badan oo maaliyadda dib u habeyn badan oo shaqaalaha dib u habeynta shuruucda maaragtay xeerasha dib u habeynta maxkamadaha iyo maaragtay judiciaryga waxaasoo dhan waxaa ujeedada looga socdaa waxay tahay in bulsho caafimaad qabta oo dhisan oo aqoon leh oo in la dhiso baa ujeedada wax tahay hawsha maanta taageera waxay kamid tahay howlahaasi kamid tahay runtii aan aad iyo aad runtii ugu mahadnaqaya ama ugu hambaleynayaa bangiga dhexe iyo wasaaradda maaliyadda iyo cid kastoo kala shaqeysa runtii in hawshani la bilaabo in nidaamkii waadiyadu u guurtay oo ah online-ka nidaamkaasi oo loo guuray in xukuumaddina u guurto oo maaragtay technology-ga maaragtay la raaco aad iyo aad baan runtii ugu hambaleynayaa labada bangi oo iyaguna maaragtay hawsha qayb ka qaatay runtii ama fudayntooda iyaguna ka qaateen aad iyo aad baan ugu hambaleynayaa shaqaalaweynahan waxaa leedahay dee waa bishaaro loo sheegay runtii oo u wanaagsan oo nidaamkii ka baxayana habhasilka ahaa wuxuu lacagtooda kolba dhaqi doonta maaragtay ama lacag googo'da ama lacag dhinaata ama lacag dhexda ku lunta intaba ka saaraysa waxaana ujeedo loo sameeya maaragtay reformadaasi waxa weeye si loo gaadho daahfurnaan iyo isla xisaabta loo gaadho shaqaalaha marka tiradiisa rasmiga ee tayadiisa la helo waxaa loo gudbayaa in la tayeeyo markaa oo dhaqaalahooda iyo maaragtay mushaar kordhintooda la gaadho sababtoo ah inta qofka oonan tirada rasmiga ah iyo inta shaqeynaysa dalkana ku xoogsatay u dhiidan la helin wax u qabadkooda ama dhaqaalisiintooda way nagu adkaanaysaa laakiinse markii la gaadho gubtooda waxaa lagu ku qasbanahay in la tayeeyo dhaqaalahooda iyo daryeelkooda aada looga shaqeeyo marka taan waxaa le waa guul qaranka usoo hoyatay aada iyo aad idinku maadnaqaya dhammaantiin ciddi kastoo hawsha kasoo